علي جيتا وحل ير ورمحات كل درت النور يا ودي ورمحات كل درت الشباب مركز شبيري وأنا سلاهاي وحبوا شيء دونا حيري وحن كل دروني ولي يبين ما كواس كنا عبايو سببته وحيري قبيل معها حير مليهدين ضد مال دجن معها ضل إليهين مجرود درس ماهدين ورنما كورت هاي كوي واس كنا عباي وهذا سيدا دبا ما ورثتي ددك waxay yaqaan iyo inta wax garatay ma ورثتي adiga dugsi lagu mageyn kuma hawl baasin waxbarasho diineed waxa afkaaga ku yaala sheegaya yani af diin galay iyo madax diin galay saas uma yaalo marka jaada xaraam khamra xaraam intaas ku nacay ways ka nacabahay nimankaas ma aqaano ways ka nacabahay meeqo ku halaagan ninkaas meeqa dad oo masaakiin oo meel iska jooga oo yaa qowmi intay gacanta u gadiye meeqo ku halaagay meeqo dib ku dhibaateeyay meeqo sharci ilaahay ku duushay meeqo dad muslimiin oo aan waxba geysan dhibaato gaartay adeegu waxaan leeyahay qabaa'ilka Soomaaliyeed dadka aad raacaysiin iyo dadka idin abaabulaya horta qofka fiiri muxuu rabaa qofkan waxaan idin leeyahay ka fiirsada dadka idin hor ordaya akhriya intaadan akhrin waxa ay wadaan horta qofka akhri muxuu yahay qofkaas wadoo ku anfaco mabdiis hadana fiir hadoo ku anfaco kadib shaqada gal hadii kalena dad iska ordaya oo mashaakil iska ordaya oo maxaa dhacay warkacay maxaa dhacay baan lahayn hada waxa soo aqli ma aha marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka ha ka fiirsanada afcaashooda iyo aqwaashooda waxa maanta la isku haysto waa Ilaahay baa yiri Nabi Maxamed ayaa yiri saasana lagu dhaqmaa iyo lagu dhaqmi maaye Mareykanaa yiri baydana yiri baarlamaanka Mareykanka yiri waana arki kartiin filimka hadda soo baxay oo galcad waxa ku yaala boor weyn ku yaala markaas uu leeyahay shariica low ayaan la dirarsanahay uu leeyahay shariicada waxaan ku diidan uu leeyahay saas waa nin Mareykan waa ka boorka weyn oo Amerika dhaxda ku yaala la soo sawiray marka waxa qofkan u dagaalamayo Ali Jeyti inta u dagaalamayo waa intaas war dadkaas ma dhaqankiiniya ma diintiiniya ma dabcigiiniya waxaas ma aha war Ilaahay ka cabsada dadka Soomaaliyeed oo aqliga leh waxaan leeyahay war u noqda kitaabkiini iyo ra'yigiini wanaagsanay iyo dadkiina wax garadkaay dadkan walaalihiin weeye mujaahidiinta minna qabsado in mujaahidu intuu noolyahay xabadu waa soconay أجل كان إلهي يا بعشر لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون dad kan kumanaanka qof xukumi karta ajil kood inay dhamaadaan ma jirto Ilaahay haduu kuwa gaarsiin raba 100 sano 100kii xabadu socay 100kii wallahi wa rabbul kaaba inta in mujaahid joogo xabadana waa socay ninkii islaam soo dhil waaye iyo bishaan dhamaahaya sanadkan 4 sano oo gurguurto waaye ma soconayso dadkan amrigooda inta gaarsiin maalin kastana nima ku beeraya marka كل جوئنا مشروع مشروع ساس كتجاية معها مشروع قبيل معها مشروع دنم معها ضد كان ضد ود لو عبسينا يمنين اسقرحينا يا او بابور انت سو دحقل اسقرحايه iyo ayado diyaar joogtanin weeraraya idoo kor laga bambo aabahay ay ugu diray aabahay imaaday dhaanina ku siina nima aqaanin waxna ma barash baasi waxaas ma aan baranin inaan ku siina ayaa dhawaabo waxa dhama ii dhaaftaan in ma aqaanin meehana leegi widaan meel igiisana mar cidii inaan nool wada rabaa hooyaday kale ay geeriyo qabtaa ina hooyaday la adeego u joogaan rabaa nin hooyaday waa dhaqan aan rabaa Sonia sana ii dhameeyay meeshan amal gelin rabo markaas aabe markiis milatiida karamo ana asla marka dooq aan fiici shalinka adaa keenta maantana saayga waa la dhigi karaa qofmo saasa oo baxay ayaa marka joogo fahmi waay markaas uu dagaalay waxa rabo aabe istiinaayo iska joogay shabaab waay كل كده هذا كويا كإمادة ما كويا أوجي كويا جوجي بهذه السنة عبطوي بالملاعب سنة كويا جوجي مركز ماشي كنا لا ماشي أنا عدي أنا ولا جري البعض عندك ناجري مظهر أنا يعني سطوني أفر سنة جرابي كدري مركز كدري عب وكين كان أكو كان إلى جورس تعرف أعرف أوده هياده نك يسوي جورس يا الشباب يا جمهد لها سيدي أو جورسد إلى هالويلو كسي إنجو سيديد بلو جرا سكفر هذا إنجو لو السنة أفر بلو جرا أنت سنن هو إذا يلا ولا مرنا أنت إيماني أبي محمد حسن برسالة ما يعملش الوقان إسماعيل حسن وكاسا جمهد ويني تتكو ودور كجركا نيك عبد الكريم محمد عثمان بالله شابوها مردونا نقدن أنا waxaan ku guursaday soo macallin dugsiga meel dhaaf buu hoodle
waxayna ahayd xilli hore 2011 deegaan ahaan kama soo jeedin deegaanka Kismaayo ka soo jeeday oo isoo raray wuxuu geeyay Kismaayo markuu geeyay wuxuu ku dhahay Puntland soo ku soo karay isku deegaan ku soo kornay xaq wax ku bartay isagoo yar baa la keenay buuhood wuxuu dhahay waxaan u noqonayaa Puntland waa la qabsan waaya Kismaayo wuxuu aaday Boosaaso wuxuu sheegay inuu galay jaamacadda Bariga Afrika waana arkay warqado iyo waxaas ay codsi dawladda hoose Puntland ku qoran tahay oo jaamacadda uu ku codsanayo maadaama jaamacadda taabacsan uu ka soo baxay oo buuhood ku yaalo waqti dheer kadib anaka Kismaayo iska deganaa 3 ciyaal u dhalay dadka dhan way ogyihiin ehelkiisana way ogyihiin ehelkeygana way ogyihiin muddo kadib waqti dhow waxaan maqlay ninku inuu yahay al-shabaab uu joogo buuraha goolis waan ku qabsaday waxaan ku arrintaas lagu sheegay uu igu inkiray nimankaas anaga colaad baa naga dhaxaysay aabahay oo aniga ay dhalay qarax ku dileen waxay ku aadinay 2008 aabba Allah naxariistay odayaal kala nabadoonnay 5 ayaa waxay u joogeen hawlo dacwo oo dad ehel xirxirnaa iyo hawlihii nabadoonnay waxay u joogeen ma garanay xilligaas waa yaraa laakiin waxa la ii sheegay inay dad xirxiran iyo waxa u dacwoonayeen kadibna waxa la ii sheegay ismiidaamin aniga waa joogay Hargeysa markaa qaraxyo waaweyn baa ka dhacay abaar 4 saac subaxnimo 10 subaxnimo markay ahayd aabahay intaas ku nafooyay anaka duuganay midkiisa aan keenay Allah naxariisto asaga iyo islaamka la dhintay reerkayga waan u sheegay arrinta markaan u sheegay waxa la dhahay arrintaas soo xaqiiqada ku cadaatan iska soo furnaag ninka ayaa iska furi kartay iska soo furnaad dad shicib aan shalay aabahay dibasdeed 10 cunug baan waxaan ku yiraahdaa waa aabahay dhalay Allah naxariisto aniga waan soo tagay hooyana la caamil ugu tagay kadibna waxaan aaday jilib ninkii aan maqan baantay asana wuxuu soo wareegay maalinta Jubbooyin waxa ahay qof xaas oo magaaladan degan oo ilmo ku haysto oo mudooyin badan xataa laga maartay laga maqnaa oo marmar aadi jirtay sanadaha u dhaxayaan marka ugu dambeysay 1 sano iyo 4 bilood kala maqneen cunugay ugu yar 3 sano jira marka hadda dhow oo laga joogo in muxuu ahay 2 bilood oo 20 bir dhiman aan xagga soo joogay waxaan ugu tagay muxuu ahay culeys jir darteed inaan aniga asaga aan kala tagno maadaama oo waxna aan ku haysan oo ilmahaygan aniga u xamaalnay garab xamaaltay iska ahay oo magaaladan aan ku noolay Cabdi Ismaan la dhahaa sideeda u dhal waxa Cabdi Ismaan Faarax sideed cunuga u dhal waxna ii nool waxna ii saqiireen waxaan ugu tagay muxuu ahay culeys jir darteed inaan aniga asaga aan kala tagno maadaama oo waxna aan ku haysan oo ilmahaygan aniga u xamaalnay garab xamaaltay iska ahay oo magaaladan aan ku noolay Cabdi Ismaan la dhahaa sideeda u dhal waxa Cabdi Ismaan Faarax sideed cunuga u dhal waxna ii nool waxna ii saqiireen